السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ونكسن داوضي الميل والبعد جوجتان با qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida dagaaladii xoogana ee ka socday waqooyiga dalka Itoobiya ayaa si lama filaan ah waxa ku yimid isbedel weyn ayadoo gobolka Axmaarada ee dagaalada ugu badan ka socdeen ay ka soo huleeleen ciidamadii dawlad deegaanada ka socday gabi ahaanba sidoo kale ciidamadii dawlad deegaanka Soomaalida ee bishii July loo qaaday gobolka Axmaarada ayaa gabi ahaanba laga soo daabulaya maanta galbeedka dalka Itoobiya qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida xaaladda magaalada Addis Ababa ayaa laga dayrinaya iyadoo la filayo inuu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu ku dhawaaqo xukuumaddiisa 5 sano ee soo socota dalka Itoobiya ka talin doonta sidoo kale dawlad deegaanka Soomaalida doorashooyinkii ka dhacay ayaa la filaya ayagana inuu lagu dhawaaqo cidda ku guuleysatay qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 3 bisha 10 2022 haddaynu u gadogalo wararkeeni oo faahfaahsan dagaaladii xoogana ee ka socday waqooyiga dalka Itoobiya ayaa si degdeg ah waxa uu yimid ama si lama filaan ah isbedel xoogan ayadoo dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya ama galbeedka gobolka Axmaarada uu qaatay waqooyiga Itoobiya dagaal waxa ka dhacay ugu yaraan 1 sano gudaha la galay sidoo kale galbeedka gobolka Axmaarada dagaal ugu yaraan 4 bilood qaatay oo TPLF dagaal ay ku soo qaaday gobolka Axmaarada ayaa ka socday bariyahan damaba dagaalkaas oo u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo huwana hogaaminayso hase yeeshee si lama filaan ah waxa ku yimid dagaalkaasi hakad dawladda federaalka ama wasaaradda gaashaandhigga dalka Itoobiya ayaa maalinimadii shalay waxay soo saartay inay ciidamada dawlad deegaanada ka socda gabi ahaanba laga soo daabulay jiida hore dagaalada ayadoo wasaaraddu ku sheegtay in uu isku dhaxyaac jiro xagga ciidanka ama isgaarsiinta dawladda federaalka ayaa waayihii ugu dambeysay waxa ku jirtay abaabul aad u badan oo TPLF laga hortagayo ayadoo dawladda federaalku ay aad u tayeeysay ciidamada militariga ciidamo cusubna ay ka qoranaysay dawlad deegaanada ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa wuxuu ku guda jiray safarada xagga caalamka asagoo taageero weyn ka raadsanaya ama dhanka dhaqaalaha ee TPLF la iskaga dhicin karo hase yeeshee hadalka ka soo yeeray wasaaradda gaashaandhigga ayaa dad badan oo ka tirsan dad badan oo kamid ah dadka Itoobiya ayaa u fasirtay arintaasi inay tahay fashil dagaal hase yeeshee dawladda federaalka ayaa ku adkaysanaysa inay ayadu markasta guusha joogto qorshahan ay ayadu qaadatayna inuu yahay qorshaha ugu muhiimsan ee TPLF lagu dagaalami karo dawladda federaalka ayaa waxay tiri waa inay dawlad deegaanada ciidamada ka soo socday gabi ahaanba ay kala soo baxaan jiida hore dagaalka maxaa yeelay dawladda federaalku hadda laga bilaabo ayada kaliya la dagaalami karta TPLF wayna awoodaa dawladda federaalku inay TPLF ka guuleysato dawladda ayaa waxay sheegtay ugu yaraan 100,000 oo ciidan inay tababar soo xidhay ciidamadaas oo aad u qalabeysan dagaalka jiida horena loo daabuli doono maalmaha soo socda dagaalka ka socda galbeedka gobolka Axmaarada ayaa ugu yaraan 4 bilood cagaha la galay asagoo dagaalkaasi uu ka qaraaray dagaaladii hore ayadoo hogaanka gobolka Axmaarada uu isbedel ku yimid doorashadii kadib oo madaxweyne cusub waqooyiga loo doortay galbeedka gobolka Axmaarada ama caasimadda gobolka Axmaarada ee Baxardaar ayaa la sheegayaa siyaasadii hore iyo siyaasadda ninkan inay aad u kala duwan tahay waxaa loo maleynayaa hadalka wasaaradda gaashaandhigga ay ciidamada badan kaga soo daabulaysa jiida hore oo ciidamada federaalka kaliya looga soo baxay dagaalka in ay taladaasi talooyin badan oo la sukeenkan ay kamid tahay sidoo kale madaxweynaha cusub ee Axmaarada ayaa la sheegayaa inuu aad u yaqaan istiraatiijiyadda dagaalka asagoo sheegay inuu dagaalkaasi una kale laga guuleysan inta isdhaxyaacan iyo ciidamadan kala luuqadaha badan ay jiida dagaalka ugu jiraan ayadoo la soo sheegay isgaarsiinta ciidanku inuu in badan khaladaad ka dhacay TPLFna ay u sahashay inay dhul badan qabsato sidoo kale dawladda federaalka ayaa laga dhulsiyay balbeesha ay geyso xaaladan hadda cakran ee ka taagan galbeedka dalka Itoobiya iyo dagaaladan maalinka ka sii daray ayadoo TPLF ay sheegayso markii gobolka Axmaarada 3 loo dhiga 2 inay haysato sidoo kale TPLF ayaa maalimii ugu dambeeyay ku faanaysay in ay joogto guushii ugu dambeysay ayadoo maraysa inay sheegtay caasimadda labaad ee gobolka Axmaarada magaalada Gondar ayaa maalimii ugu dambeeyay la soo sheegay inay go'doon ku jirto ay TPLFna hareeraha kaga hareersan tahay ayadoo TPLF si jaaysanaysa xagga Axmaarada ama caasimadda gobolka laga maamulo dagaalka xooggan ee galbeedka ka socda Axmaarada ayaa waxaad moodaysay inuu dagaalkaasi ay dawladda federaalku isku geysay awoodii ugu badna hase yeeshee waqtigan lama filan inay dawladda federaalku dhihi doonto ciidamada deegaanada oo TPLF galiya hakad weyn ay xawligoodii hore ay ku socon ayagoo hakad weyn ay ciidamada dawlad deegaanadu qaybta weyn ay ka qaateen dagaalka أجلس هذا ما أنتنا دولة فدرال كوا حي كله وقت إن العدماء سجبي هم بكسب بحن تذكر إثيوبيا جاي يسويدين حالة داسينا لجرنا نمشي قدام بين دكتور حاسة يشي تيبي لفا يدو أوفر على هذا الكاسوير دولة فدرال كهين العدماء دي دولة دجانا ده لقى سر الكاسين والعدماء ده ملترجع العدماء ده تيبي لف كليا أسمى ده حبنا يو قضبنا كله ورر كنا كم أغلى دونتنا وحكم ده
Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa la filayaa in uu ku dhawaaqo xukuumaddiisa 5 sano ee soo socota dalka Itoobiya xukumi doonta. Doorashadii ka dhacday bilihii aynu soo dhaafnay dalka Itoobiya ayaa la wada filayay inay mar hore lagu dhawaaqi doono xukuumadda dalka maamuli doonta. Hase yeeshee hakad weyn ayaa ku yimid. Sidoo kale dalka Itoobiya doorashadii ka dhacday ayaa gebi ahaanba waxaa ku guuleystay xisbiga talada haya ee BB iyadoo maalinimada beriya Isniintaana la filayo inuu Dr. Abiy Ahmed ku dhawaaqo xukuumaddiisa 5 sano soo socota dalka maamuli doonta. sidoo kale cabsi weyn ayaa laga dareemayaa magaalada Addis Ababa waa caasimadda dalka Itoobiya iyadoo qoomiyadda Oromadu maalmihii ugu dambeeyay xusas ay u baxday maalinta Irij ee qoomiyadda Oromadu ay xusto ay ka xusaysay magaalada Addis Ababa ayaa waxaa isu bedeleen xusaskaasi mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo dowladda federaalka. Ciidamada booliska federaalka iyo ciidamo kale oo garab siinaya ayaa maanta waxay weerar ku qaadeen dad ku banaanbaxaya wadooyinka waaweyn ee magaalada Addis Ababa. Halka ayaa la soo sheegay inuu khasaaro weyn ka dhashay oo ciidamada booliska u geysteen dadkii shacabka ee halka ku mudaharaadayay. Dadka shacabka ee mudaharaadaya ayaa waxay u badan yihiin qoomiyadda Oromada. Qoomiyadda Oromada ayaa waxay ka cabanaysaa dowladda federaalka ayagoo qoomiyadda Oromada lagu sheegay inay tahay qoomiyadii koobaad ee ka keentay isbedelka dalkan Itoobiya uu Dr. Abiy Ahmed ku yimid. Qoomiyadda Oromada ayaa in badan waxay ku mudaharaadaysay gobolada Oromada iyo caasimadda dalka Itoobiya ayadoo qoomiyadaasi ay ka cabanaysay inay dowladda Itoobiya hadda jirto ayna wixii ay ka filayeen ayna la imanin. ayadoo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu yahay nin Oromo ayaa haddana waxaa la soo sheegay qoomiyadda Oromadu inay gebi ahaanba ku qanacsanin siyaasadda dowladda federaalka Itoobiya. Shacabka ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa aad uga dayrinaya siyaasad xumida ka taagan dalka maadaama uu dalku uu dagaal xoogan ku jiro haddana caasimadii dalka laga maamulay ay xabadu ka dhacayso. xabada ka dhacaysa caasimadda ayaa waxay tahay qoomiyadda Oromada oo mudaharaadyo waaweyn ka wada caasimadda iyo ciidamada federaalka oo heegan la geliyay. hase yeeshee beesha caalamka ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ama xukuumadda dalka Itoobiya waxay ku dhaliilaysaa inay siyaasad xumo dalka ku hagayso oo siyaasadana looga baranin dowladii hore soo maray dalka Itoobiya. qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaana waxaa kamid ah deegaanka Soomaalida doorashadii ka dhacday ayaa la filayaa in maalinimada beriya ama wixii ka dambeeyaba lagu dhawaaqo iyadoo la filayo in lagu dhawaaqi doono xukuumadda hadda talada haysa maadaama xisbiyadii mucaaradka ee aad oo la tartamayay xisbiga talada haya ay gebi ahaanba iskaga hadheen ama ka tanaasuleen doorashadii ka dhacday deegaanka Soomaalida ayaa la filayaa maalinimada beriya in lagu dhawaaqo xisbigii ku guuleystay doorashadaasi ayadoo dadkoo dhan ay wada sugayaan dhagta ay u taagayaan inuu xisbigaasi noqon doono xisbiga talada haya. hase yeeshee dadka dowladdeegaanka Soomaalida ayaan ku qanacsanay qaabka ay doorashadu u dhacday. ayaa lagu sheegay inuu ahaa qaab nabdoon hase yeeshee wax tartan oo la kulmeen xisbiga talada haya ma jirin. wixii doorashada galay gebi ahaanba way soo baxeen wuxuuna ahaa un xisbiga talada haya BB. sidoo kale dowladdeegaanka Soomaalida ayaa doorashadiisu ku soo aadaysaa waqti uu deegaanka Soomaalidu yahay deegaanka kaliya oo ugu nabdoon dalka Itoobiya maadaama deegaanka Soomaalidu wax dagaal ah ka socda ayna jirin gebi ahaanna ilaa waqtigii dalka Itoobiya isbedelkii uu Dr. Abiy Ahmed ku yimid uu deegaanka Soomaalidu nabad yahay. tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.